بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan ku suganahay xeebta badweynta Hindiya ee Garacad. waxa hadafkayadu iyo ujeedadayadu tahay inaanu dhaqaale u ururino wadada isku xirta Garacad iyo Galdagob ee gobolka Mudug, taasoo ku dhisan isku tashi ay bulshada gobolku isku tashatay, annagoo ku xisaabtamayna xoolaha xerada noogu jira, dhaqaalaha aan haysano, aqoonta aanu leenahay iyo khayraadka baddeena Ilaahay ka buuxiyey. kalluumaysatadu waxay diyaar u yihiin kalluunka ay soo saaraan inay wax ka bixiyaan, beeralaydu waxay diyaar u yihiin inay miraha dalka u soo baxa wax ka bixiyaan, xoolo dhaqatadu waxay diyaar u yihiin inay xoolahooda bixiyaan, ganacsatadu waxay ku deeqeen qalabkoodii, reer magaalka iyo shirkadaha ganacsatadu waxay ku bixiyeen dhaqaalahoodii. jaariyadda dibadda waxaan u mahadcelinaynaa jaariyadda Australia oo lacagta ugu dambaysay ku xogtay $16,000 soo gaarsiiyey. sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa gabdhaha jaariyadda Zambia oo iyaguna $10,000 wadada ugu deeqay. wadadaanu insha Allahu tacaala way dhisantay. waxaan u mahadcelinaynaa Liibaan Boqor Muuse oo qalabka lagu dhisay wadada labada cagaf oo ugu cusub ruulla iyo baallo ugu deeqay. sidoo kale kambaniyada wadooyinka dhisa ee gobolka Mudug sida kambaniga Elgaar Gaariyaasiin, kambaniga Isxilqaan Golad Buufe iyo sidoo kale kambaniga Hubaal Ali Faarax, sidoo kale kambaniga Albaashi ee John Yardi, intuba waxay ku deeqeen qalabkoodii. loo kala harimaya na dhoobada na dhagaxa ninka dhowtaa xalkuma laha. khayraadka badweynta Hindiya ka buuxa waxaanu rajaynaynaa in khayraadkan hadda markaanu ka soo saarno Garacad isla duhurkii looga qadeeyo degmada Galdagob ee xuduudda Itoobiya ee gobolka Mudug. ballanteena waa ayaan loo kala harin, nin walba wadada dhaqaalahaaga ku bixi. wadada nin laga sheeganaya lama arko, nin sheeganaya ma jiro, nin dhaqaale ku xadaya ma jiro, nin dan kale lama arko. waa la isla xisaabtamayaa, nin walba wixii uu bixiyey iyadaa la gelinayaa. inta hadda la qabtayna waa in muuqata, waa wejigii saddexaad oo ugu dambeeyey. waxaan rajaynaynaa xoolaheenna iyo khayraadkeenna markaan isku geyno inaynu ka wada faa'iidaysan doonno oo biyahan halkaan ka buuxee badda haddaannu Itoobiya iyada keliya u iibgeyno biyaha badda lacaga cusbaday baa halkaan taalla, khayraadkii iyo kalluunkii baa ka buuxa. waxaan rajaynaynaa inaan ka faa'iidaysano. noo yimid waftiga ballaaran oo ka socda gobolka oo isugu jira hay'addaas gudoomiyaha gobolka, hay'adda neesha iyo guddiga wadada wadaagsin. waa soo dhaweynaynaa. laga wada dharagsan yahay buu ahaa wadada wadaagsin wejigii saddexaad oo la bilaabay. wejigii koowaad sidaa wada ogeydeen wuxuu ahaa Garacad iyo Jiriiban markii ay kala go'een isku xirkoodii oo 2001 la bilaabay ilaa iyo haddana lagu intifaacayay. guul bay taasoo ahayd. wejigii labaadna wuxuu ahaa kii 2013 iyo 2014 la bilaabay oo waxa weeyaan ilaa iyo Gaalkacyo ilaa iyo Gurmugaan mid la keenay. midkii sidoo kale lacagtii horumarinta ahayd oo aad la wada socoteen oo ahayd Jiriiban iyo Ballibusle intii u dhaxaysay oo iyaduna 20 kiiloomitir ahayd.
sidoo kale wadadaas ilaa Galdogob bay ka soo socotaa oo waxay soo maraysaa iyaduna Bayra waxa la isla qaatay siyaasadda dawladda Puntland ee Puntland hay isku tashato xoolaha xirada inoo ku jira iyo dhaqaalaha aynu haysano inaynu ku tashano isku tashigii wuxuu keenay wadadii hore oo wadaagsin gudigeedii wixii uu qalab hayay saddex cagaf oo ka haray qalabkii in waxa weeye saddexdii cagaf ayaa la keenay oo raggii gacanta ku hayay Cabdi Saciid iyo ay kamid ahaayeen ay ku wareejiyeen madaxweynaha dawladda Puntland iyo hay'adda wadooyinka ee Puntland qalabka markii la dayac tiray kadibna dadka ehelka oo deegaanka ayaa la dhex galay waxa laba makiinadood oo hadda makiinadaha ugu cusub oo ugu qiimo badan ku deeqay ilmo Muuse Boqor Yaasiin Muuse Boqor iyo Liibaan Muuse Boqor sidoo kale ganacsatada gobolka u dhalatay wadooyinka dhista sida Gaar Yaasiin Gorod Guufe Cali Faarax iyo John Yardi intuba iyaguna qalab ayay u soo qoondeeyeen dadka dibadda xiriir ayay soo sameeyeen oo waxaad ogeydeen dhawaan inaan jiriiban 16,000 oo ay soo didhay jaaliyadda Australia kala wareegnay sidoo kale 4 maalmood ka hor gabdhaha reer Zambia ayaa iyaguna $10,000 soo diray inta waxaanu ka soo bilownay socdaalka iyaga Gaalkacyo Ceelbardaal aanu soo marnay Balibuslaan soo marnay Boobi baan soo marnay Seemadaan soo marnay Jiriiban baan soo marnay inta hadafka iyagu waxa dadka inaan gaarsiino in xoolihii aad uga qayb qaadan lahaydeen wadadaas la wada bixiyo hadda Garaacad waa meesha ilaa iyo Galdogob lagu wada taamayo ilaa iyo Itoobiya sidii aynu biyaha badda hadaynu Itoobiya geyno waa ka dhargeynaa inuu walba caagadu guriga surto waxay yiraahdaan caagadan guriga suranaadaan noo keentaan xataa waxa la waxaana tiraadaan baan bixinaynaa kalluun iyo libaax iyo khayraadka badduna waa ka sii badan yahay marka nimanka duulaanka lagu soo hayo wadada in loo keeno oo waxay haystaan oo khayraad iyo barwaaqo loo suuq geeyay rabay reer Garaacad bay ahaayeen reer Garaacadow waxa la idinka rabaa kalluumaysatada waxay uga qayb qaadan lahaayeen inay keenaan xoolaha ninkii ari haysta ariga uga qayb qaato ninkii geel haysta geela uga qayb qaato ninkii dukaan haysta dukaanka uga qayb qaato gabdhuhu dahabka ay uga qayb qaataan dhalinyaradu xoog ay uga qayb qaataan ninkii gaadiidka laga rabaa ujeedada iyadu waxay ahayd reer Garaacadow inaad idinkuna u istaagtaan wadada wixii aad ka qayb qaadan lahaydeen nimcada iyo barwaaqada haysataan wax ka baxsada oo hor Ilaahay geeysta waxaan rajaynaynaa marka fariintaas inaad inta maqan idinku gaarsiin doontaan oo ehelka oo aanan hadda wada gaari karin idinka guddi iska qaban doona ragga inta kala hawsha kala ku sii dari doonta haddana waxaan ku soo dhaweynayaa agaasimaha hay'adda wadooyinka Puntland Maxamuud Cabdinuur Aadan Dalab waxaan u soconay waxa weeye inaad ka qayb qaadataan mashruuca khayriga ah ee dhismaha wadada wadaagsin oo labadii bisha tan aynu ku jirno laga dhagax dhigay aaga Gurmo-Go'anley ee u dhaxeeya Ceelbardaal iyo Balibusle oo aan rajaynayno haddii Alla idmo inuu soo gaari doono xeebta Garaacad haddii Allah awood loo ogolaado waxaynu ku dhagax dhignay mashruucaas ma ahayn dhaqaale nooga yimid dibadda iyo ajnabi iyo gaalo iyo mashaariic kale nooga yimid ma ahayn waxaanu ku dhagax dhignay waxa weeye kalluunka aad la soo baxdaan salaadii kala soo baxdaan xeebta iyo ariga xirada noogu jira iyo dawladda Puntland waxyaabaha yarka iyo khidmaadka oo ay qaado iyo ganacsatada reer Puntland waxa akoonkooda ku jira ayaynu ku dhagax dhignay waxaynu fulinaynay oo aynu daba joognay waxay ahayd baaqi madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland ay ku baaqeen oo ahaa Puntland ha isku tashato waqti badan ma haysano si aynu kiiloomitir badan aynu wax uga qabanno waxaynu soo jeedinaynaa inaynu waxa weeye ka wada qayb qaadano haddii Allah wada ogolaado aad baan u mahadsantihiin waxaan uga baxayaa guddigii odayaasha ahaa ee wadada tan xilkasnimadooda iyo odaynimadooda waxa weeye u soconayay inay iyaguna doorkoodii ka hadlaan waxaa la idinka rabaa geel iyo ari laakiin idinka geel iyo ariga waxbaa idiin wehesha waxaa idiin wehesha malaygii iyo khayraadkii badda la idinka rabaa inaad uga qayb qaadataan wadada ilaa iyo meesha la tawfiiq ilaa dhinowda ilaa iyo ceeldhanaane ilaa iyo meesha la yiraahdo buq oo halkan laga xukumo intaas oo magaalo u teedsan tahay idinka ka mas'uul waxa la rabaa inaad guddi ka qabataan waxa la rabaa inaad cagiina ku tagtaan waxa la rabaa xoolaha inaad jifjif u qaybsataan waxa la rabaa cid walba oo wadada isticmaasha inaad ka qayb gelisaan adeerayaal waxaan idinka codsanaynaa oo kulligeen aan idin rajaynaynaa oo inagoo dhan rajaynayna inaanu gacanta isqabsano waxa weeye ariga yarka habeen walba la bariyo oo dawacad cunto wax kasta hadaynu isu geyno jid laamiyeen ku samaysan kareen dadka halka jooga mid geel watay mid dukaan leh mid aragoosta ka shaqeeya mid idab badan leh mid hadii ilaahay ku reey magaalada Bogcada iyo guriga ku leh qof walba hiba mid xoog leh oo aan xoolo lahayn oo la rabo inuu xoogiisa kaga qayb qaato galabtay waxa la rabaa inaan ballan qaadno reer Garaacad annagoo afka ku hadlayna Garaacad
inaan galabta ballan qaadno odayaal ganacsato dhalinyaro haween cid kasta inaan ka qayb qaadanayno juhdiga loo marayo wadada wadaagsin oo dadka annaga naga xooga yar oo naga da'da weyn oo hadday rabaan naga xoolo yar ay waqtiga badan iyo xoolaha badan ku dhuminayaan inaan annagu nahay salkii sida loo sheegay waxaan joognaa meesha Garacad raad waa laga hadlaa Garacad waa meesha ugu doorka roon waa run laakiin waxa annaga naga sii fiican kuwa soo gaari waayay khayraadka halkan joogo hada ay u fududaanayso laftigoodu waa naga sii fiican yihiin annaga walba meesha joogno xaajada meesha talba inta tira leeg wax ballaaran baa yaalo wax baraan laba fududeeyo waxa la ku soo aruuraya reer Garacad wadada doorka ay ka qaadan jireen inay ka siyaadiyaan ma aan hoos uga dhignayn سلام بعد جهاد وضل أدناك أنت وكمات سنتين والكي وبقول أنا أقول واقعا وهنا إنه مال يوم وضبوحي عن هالكرنه وطورت يعني كو بالله وانو قمنا هدي لهايدنا أظن كنا أمات سنتين واحدا بسويني ريان وقمني لكن رم بينقط الحمد لله رب العالمين وح الله روح عن هالكرنه ديار بالنا تي ذهب قدل هاي تي أري قدل هاي تي قري قدل هاي تي باور قدل هاي waayo waxaan haystaa dhibaato wada la'aaneed anagu reer jireen anaga uga sii baahay badan waayo waa ka fognahay wadada dhaqaatiirta ma joogto isbitaal ma leh qof baa xanuunsada ama waa dhaawacmay ama waxba si noqda gaal kacayo baa noogu sokaysa muxuu ahayd emergency waxaa noogu sokaysa gaal kacayo qofka inta la sii sido waxba si ka noqonaya ama waa dhimanaya ama waa cusnaanaya ama waxba si noqonaya marka anagu wadada waa ku faraxsanahay waa soo dhaweynaynaa وكجبينا وكبرامبرينا حولان كبرينا وح الله وحنا هيسنو حتى كورنا وكبرامبرنا وجب يجرعد يقال كعيد كحرة بهيد وحيالي معنا صومرنا هاتنا وحويان كوي يكوا كسي بدن وحنا بدي يقال على جست يفرد كلون كيف قلقلنا يجور والبابا بحرد جورته يقالان وكجور هيان قلقوا يجرعد يقال كعيد كحرة وحوي وكجبينا وكبرامبرنا وحويان ما شاء الله وحنا لنا هاي waxa weeye gobolka meesha la yiraahdo mudug Garacad waxa weeye aad baan ugu faraxsanahay waa soo dhaweynaynaa waa bixinaynaa guddi baan u saaranaa anoo hooyooyin guddi baan u saarnaa hooyooyinahay hawsha waa wadnaa hadda wixii nagu haboon baan hagaajinaa waan kala baxaynaa dhalinyaradu gaar bay u baxaysaa odayaashu gaar bay u baxayaan waxa weeye qolo walba iyadoo wadata calankeeda iyo gurbaankeeda iyo xoolaheeda imaanaysaa annagu hadda waa adeegayaal baan ahaynoo idinkaan idin adeegaynay فرنتي وايد زوجار سيني وأنا لقاعدتين. دونك وحيري ما أنت قبلها حصة ما أنت هدي ركبة كويا بهاي رتي وقبلها أنت حناقين بي بدو البوان إياه واحد صار $100 مركا إن شاء الله تعالى من قبرنا رتبة كويا بهاي بحيث إن شاء الله تاسوا دي تجلين ويا waxay inuu iskula soo noqonaynaa hada socodkan kaliya ahaan mayno inta shaqadaas u socoto waxaan rajaynaynaa higsiga annagu aan higsanayno Soomaaliya waxay la tahay waa maqshan 2016 higsi bay higsanaysaa inaguna haddaynu gobolka mudugnahay higsigeenu waa in la isku xiro sida gabadha hadda abwaanada sheegtay Garacad iyo Galdogob in la isku xiro waxaan ku yaboohay kun lacag haddaan idin dhiibaya anigu arina malihi geel la malihi xoogayga isticmaala kana tacabkiisi baa markale loo tabaa bushaystay haddana la dhaqaale weeye Abdusalaam Maxamed waxaan kala wareegnay lacag $1 ah oo ay ugu deeqday wadada wanaagsan dhismaheeda wajiga saddexaad oo yardo waa qofkii koodaad waxa weeye lacag kaash ah bixiya oo deegaanka dad ku nool ah marka laga reebo qolba joogta Zambia iyo Australia oo lacag soo dirtay maamo ilaahay khayr kaasi iyo ajir xasanaad meesha ka soo bixisana badal khayr qaba ilaahay ugu bedelo waxaan u ballan qaadaynaa in lacagtaasi aan gelino wadadii aad ugu deeqday waxayna gashay guddi aamina gacantood maama ardo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha barakeeyo waxa ay wax ku bixisay waa sadaqa jaariye waa wadada isku xiraysa halka aynu taaganahay oo xeebta Garacad ilaa iyo degmada Galdogob ee xuduudda Itoobiya waxa taleefanka ku jira isaguna wariye Jamaal Faarax Aadan oo magaalada Garowe maanta maruu ka dhageysay warbixinta wadada BBC-da $30 soo diray waxa sidoo kale magaalada Beledweyne hadda iga soo ambaliyay mid ka mid ah xidmidaya kubadda cagta Soomaaliya ee naadiga Horseed xaasay isaga iyo bulsho badan oo la fadhidaba ay leeyihiin waa idin la garab taaganahay waxaan rajaynaynaa inaanu kaalintaas iska wax u qabso iyo qarannimadii iyo Soomaalinimadii bayna xasuusisay inaanu haddaan reer Beledweyne waa idin ambaliyaynaynaa waxna waa ka qaadanaynaa haddaba hawshaan waa mid aan maanta loo kala harin
qof walba wax ku bixiyo waxa aad ku bixisid iyadaa la gelinayaa qof walba waxa ay maama arda u bixisay waa dhiirigelin inay iyadu u bilowdo dadka reer Garacad qof walbana waxa weeyaan nin neef ariya bixiya nin kalluun bixiya nin waxa weeyaan dhaqaale bixiya nin boos bixiya waxaan rajaynaynaa hawshaas inuu qof walba kaalintaas ku dayashada mudan uu ku daydo oo siday maama arda u bixisay lacagtaas oo qof walba u bixiyo qof walba wax ku bixiyay waxaan leenahay bedelka khayr badan Allah kuugu bedelo wixii aad bixisayna dambi dhaaf Allah kaaga dhigo qofkii waalidkiisa wax u sadaqaysanaya qofkii isagu wax sadaqaysanaya intaba waxa weeyaan waa wada khayr ah oo furan wassalaamu calaykum أمانا إيراد كدحدي سبو